maankaaga kubahay lawa horseedkii hoggaankeeni dhaqankee idaraac saldanaadiyo hawraan la qaatiyo isnaantiyo wanaagee maankaaga kubahay hantideedu waa qaran alabsiga midnimaadiyo Somali halkulo arusa aaba mooye akamaysa weligeed arusa aaba mooye akamaysa weligeed hantideedu waa qaran alabsiga midnimaadiyo Somali halkulo arusa aaba mooye akamaysa weligeed arusa aaba mooye akamaysa weligeed idinkuna halyeeyo dhammaantiin haweenko ummad lagu hirtaayo inta guudagayso lagu hooginoy noqo inta guudagayso lagu hooginoy noqo idinkuna halyeeyo dhammaantiin haweenko ummad lagu hirtaayo inta guudagayso lagu hooginoy noqo inta guudagayso lagu hooginoy noqo lawa horseedkii anaqaadka nabadiyo hoygiisinaante loo wada hamuume ambalyada tixgelinta leh dadku uba hibeeye lawa horseedkii anaqaadka nabadiyo hoygiisinaante loo wada hamuume ambalyada tixgelinta leh dadku uba hibeeye hantideedu waa qaran alabsiga midnimaadiyo Somali halkulo arusa aaba mooye akamaysa weligeed arusa aaba mooye akamaysa weligeed hantideedu waa qaran alabsiga midnimaadiyo Somali halkulo arusa aaba mooye akamaysa weligeed arusa aaba mooye akamaysa weligeed waa soo dhaweynayaa dhalinyarada iyo wasaaradda aad baan ugu faraxsanahay inaanu dhalinyarada ka timi labadaa meelood iyo garow ay marti u yihiin aanu caawa halkan ku qaabillo tuur wanaagsan baad soo gashaa marka xoogaa jalas baan yar ahay oo reer Boston baanan arag moogtay mar haddii leena waxaan jeclaan lahaa Boston Massachusetts inay yar meesha marayso laakiin yaa ta soo socotaan filayaa inay maxay tahay waana casuuman yihiin warka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan maxay tahay halkan aan maanta idinku marti gelino
waad farxad baad qaadateen waddanka waad marteen tuurka aad madaxtooyada ku soo marteen runtii waad ka hesheen magaalada idinkoo maxay tahay caadi aad marteen qolyihiina xamar ka yimi iyo maxaan umanayaa bug iyo sanqadh iyo maydin maqal marka waa dhulka nabadgelyada ah waad soo noqnoqon doontaan haddii aan la yidhi aad iyo aad baan idiin soo dhaweynaynaa runtii farxad weyn bay noo tahay in kulankan uu ku qabsoomo Garoowe oo heerkan ah inuu ku soo dhammaaday si guul ah waxaan marka ugu horeysa ka mahadcelinayaa intii soo qaban qaabisay dhammaan intii joogtay halka inta xamar ka timid iyo inta safarka dheer soo gashay Mareykanka oo aan filayo inuu Axmed Daahir u horeeyay dadka hawshaas waday waa runtii guul weyn wey dad muddo badan aan arag in caawa sheekhay uu Garoowe joogo markii ugu horreysay waa maganaya dadkan magaciisa la maqleera wala laaciyo in yar baa taqaanay Cabdirasaaq iyo ninka la yiraahdo Maxamuud Gaajo iyo raggii ciyaari jiray marka dabcan focus iyo Axmed waa ka weyn yihiin Bashiir la ninka la yiraahdo sheekhay laakiin isaga jiilkii dambe waaye marka Sucaadna waa fadhidaa runtii aadaan ugu faraxsanahay waa jeclaa mashquul baan ahayn in ciyaarta daawano nimaano way ahayd laakiin insha Allah mararka damaan imaan doona basketka halka xoogaa waa ku hooseysa laakiin in kor loo qaado rajeynaya marka koobkii madaxweynahana waa laga guuleystay waa reer Mareykan anna reer xamar baan anaga guusha qaadnay marka nimanka reer Garoowe ruuxdooda waa laga guuleystay marka iyada rabtirkeeda ciyaar fiican bay ahayd waxaan rajeynayaa marka dambena inay soo noqnoqon doonaan xilliga fasaxa ay dibadaha ku jiraan iyo xilliga halka xagaayadana xamar roob baa ka daa intana dabayl adag baa ka socota marka mararka dambe inaad ku soo beegantaan xilliyada fasaxyada kale oo December iyo marmar kale aad heshaan jaanisyo joogu intaan ka fiican yahay inkastoo xilligan aan filayo dabayshii inay saameyn badan ku yeelan kubadii soo saas ma ahayn way fiicneen labadan bersida waa dhaantay laakiin meeshan dabayl xoog la ka dhacday xilligan xagaaga ah dabcan dalku wuxuu ku jiray xaalad abaar ah laba filanayn qorshahana in la sameeyo waxa laga yaabaa inay hal sano qaadatay si loo diyaariyo ma sahlana in dad dibadda ka yimaad halka ciyaar loogu qabto dabcan hadal badan ma uma talagelin inaan salaamno farxadda ila qaybsano iyo guusha inagu soo dhaweyno madaxtooyada insha Allah qaybta kalena waad arki doontaan inay dhimano madaxtooyada ruuxadeeda qayb sports leedahay marka hadda mari doontaan garoonka basketka waa sii arkaysaan marka aad maaragtay inaan maalin dhan wada qaadanay laakiin waxa la sheegay inay kooxda xamar berri baxayso saasoo ma degdega waxa keenay marka insha Allah marar dambaan si fiican u ballami doonaa aad u mahadsantihiin hadal badan oo u baahan yihiin farxaddan wada qaybsanayna oo mahadsantihiin